السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال كسو دوادا برنامجكني بيرها وهذا لبا idila socodsiyo anigoo ayaale maxamed aadan ayaala talyaani xubinteena aynu ku soo qaadan doonaa hadii waalaha awood loo ogolaado muuska iyo faa'iidooyinka waadamaha uu leeyahay gabi ahaanba koonkan ku nool hadaba muuska ayaa waxa laga helaa caafimaad isla markaana muuska ayaa waxa ku jira borotiino kala duwan oo kala gadisan kuwaas oo aadamaha u leh faa'iidooyin kala duwan oo kala gadisan si kastaba daawadayaal waxaynu halkan ku wada jaleeci doonaa ama aynu ku la faguri doonaa muuska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay gabi ahaanba ummadda hadaba waxaynu soo qaadan doonaa 8 qodob oo aynu ku lafaguri doono faa'iidooyinka laga helo geedka loo yaqaan muuska oo ay dad badan ayna fahansaneen faa'iidada uu leeyahay ee uu caafimaadka u leeyahay hadaba 8 qodob daawadayaal waxay u dhigan yihiin sida tan muusku waxa uu ka mid yahay qudaarta caafimaadka oo cunida muusku waxay kordhisaa tayada fayaqab ee caafimaad sida khibrada caafimaadku sheegeen cunista muusku waxay kordhisaa nudayaasha la dagaalama kansarka waa kuwan tiro faa'iidooyin ah oo laga helo cunista laba xabbo oo muus ah maalin walba qodobka koobaad waxaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal wuxuu yareeyaa niyad jabka depression muusku wuxuu yareeyaa heerka xadaadiska maskaxda ee ka dhasha walwalka walbahaarka iyo caloolyowga qodobka labaad wuxuu daaweeyaa gaasta muusku wuxuu ka hortagaa gaaska iyo nabarada ku sameysma caloosha iyo mindhicirada qodobka saddexaad muusku wuxuu ilaaliyaa tayada dhiigga muusku wuxuu ilaaliyaa tayada dhiigga ee caafimaad qaba nudayaasha dhiigga cun laba xabbo oo muus ah maalin walba si aad uga bogsatid ama uga badbaadid dhiig la'aanta qodobka saddexaad waa daawo calool istaaga ka hortagta maadaama muusku leeyahay bal feebar waxa uu daaweeyaa calool istaaga cun laba xabbo oo muus ah maalin walba oo ka takhalus calool istaaga qodobka shanaad waxa laga helaa tamar oo luqadda qalaad loo yaqaan energy muusku waxa ku jira 3 sonkorood oo dabiici ah oo kale ah fructose glucose iyo sucrose kuwaasi oo ka caawiya jidhka inuu helo tamar ku filan qodobka lixaad wuxuu xoojiyaa lafaha muusku waxa uu xoojiyaa lafaha muusku wuxuu fududeeyaa nuugista calciumka oo ah maado lafaha u roon sidaa darteed wuxuu lafaha ka dhigaa kuwa caafimaad qaba oo xoogan qodobka toddobaad wuxuu la dagaalamaa cudurrada muusku wuxuu yareeyaa sumowga jidhka waxaanuu jidhka ka nadiifiyaa wasakhda qodobka 8aad ee aynu ku soo afmeeri doono xubinteenan ayaa waxa uu noqonayaa wuxuu kordhiyaa xusuusta cunida muusku waxa yar sare u qaada awoodda xusuuseed ee qofka haddii xaddi badan oo ah maadooyinka potassium iyo magnesium ee ku jira muusku waxay sare u qaadaan xusuusta daawadayaal intaasina waxay hayde 8 qodob oo soo qaadanay faa'iidooyinka uu leeyahay muusku ama faa'iidooyinka laga helo marka laga hadlayo caafimaadka qofka bini'aadanka hadaba si kastaba ha ahaatee hadii aanad hore u cuni jirin ama aad ka wahsan jirtay muuska maadaama aad ogaatay caafimaadka uu leeyahay una u leeyahay naftaada cun oo had iyo jeer ha u daymo la'aan daawadayaal barnaamijka waxa idila socodsiinayay anigoo ayaale maxamed aadan ayaan la talyaani intaynu daawadayaal ku kulmi doono barnaamijka xiga aniga iyo bahdiga la qayb qaadatay barnaamijka waxaanu idil ahaantiin baydu ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayaal intaana waxay naga gaag 8 faa'iido oo laga helo muuska channelkan hadii aanad hore la socon jirin ama uu kugu cusub yahay subscribe dheh like share gare si aad ula socotid muuqaalada dambe Hobal Media